halkani waa page-ka YouTube-kayna ku leenahay ee wariye Catoshare anigu waxaan ahay injineer Catoshare waxa maanta ila sugan badbaada show iyo sidoo kale Aga Dahab show maadaama maalmahan aan safar booqasho ah aan ku joogo gudaha magaalada Muqdisho ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa badbaada show oo uu ka socdo Xuseen oo ah qabiir ka socda badbaada in Xuseen soo dhawo wadhawahay Catoshare aad u mahadsan tahay waxaan ku faraxsanahay maanta in aan la fadhiyo wariye Catoshare oo naga soo booqday gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar oo ahaa nin maalmahan qabsaday social media Facebook maxalla YouTube adaa lagu deystortaniyo wareen waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed ee ku xiran page-ka Catoshare iyo sidoo kale YouTube-ku ah sina wariye Catoshare in channel-keeda badbaada show aad subscribe saartaan ee kala kacsan waa wiilkiin waa saaxiibkiin bartaas waxaad kali kartaan warar qurux badan la tafatiray oo dhanka arrimaha bulshada waa muuqaal xiiso badan ku raala gelin sidoo rubaayado challenge iyo waxyaabo kale sidoo kale waxaad toos u booqataan walaalkay ama saaxiibkayga toos isku shaqeyn Aga Dahab show asna hala booqdo hala kala kiciyo Catosh waan dhawahay saaxiib sare in Aga Dahab adigana maxaad leedahay asxaab run ahaantii waxa farxad ah maanta in aan macnaha la fadhiyo wariye Catoshare oo ah nin talentigiisu u banaanka yaalo kaliya u baahan in la garab qabta subscribe kala siiyo like kala siiyo wixii kale macnaha maskaxiyan aad macnaha ku caawiso si uu soo macnaha si uu horumar u gaari lahaa Catoshare ma sha Allah maanta wuxuu nagu soo booqday studio-geena magaalada Muqdisho aan ku leenahay show oo aan halkaas aan ku soo dhaweynay run ahaantiina video-gan waxaan ugu talagalnay in aan mataqaana aan Catoshare aan la sameeyno waan ku faraxsanahay Catoshare adiga YouTube-ka iska lahaan waa inaan wareysi kula yeesho soo aragtaa waa okay in waad soo day kartaa Catoshare run ahaantii waxa tahay nin midaba kala gidgidsan leh marba nooc u soo ekaysiyo safiican ma garatay marka maxaad macnaha mustaqbalka ka rajeynaysaa in aad ka sameyso YouTube-ka in YouTube-kayga waxaan rabaa in uu ka mid noqdo YouTube-yada ugu caansan gudaha dalka Soomaaliya waan gartay marka Catoshare yaa kugu dhiirigelin in aad YouTube sameyso aad talentigaaga ku soo bandhigto in asxaab fara badan oo Yurub joogta Axmed Halgamaay iyo sidoo kale dhalinyaro ku sugan gudaha dalka Soomaaliya markii ay arkeen wax qabadka aan ku leeyahay social media ama Facebook ma sha Allah runtii horta bulshadu waxay u baahan yihiin qof talent leh qof hal abuur leh oo wax soo macnaha hal abuurkiisu macnaha oo nin muuqdo uu yahay nin inta bulshada soo hor istaago ka qosolsiin karo culamo iyo caamo iyo madax intaba macnaha mashquulin kara siiba hadda xilliyeeda hadda lagu jiro coronavirus dad guriyaha ku xiray run ahaantiina waxaan dhihi karaa Catoshare wuxuu ka fiicay dad badan oo YouTuber ah oo aan talentigooda banaanka u helin sida hadda uu Catosh talentigiisu u muuqdo idinkuna waxaan filayaa asxaabtan daawanaysa meel kasta dunida aad ka joogtaan in aad garab siin doontaan Catoshare oo aad soo saari doontaan sidoo kalena anaku ratio hadaan nahay waxaan diyaar u nahay inaan soo saarno ama aan garab siino qof walba oo dhalinyaro ah oo talentigiisa raba in uu soo bandhigo annaka ma nihin sida YouTuberada qaar oo markay xoogaa horumar inay gaareen ay u maleeyaan buusaayo oo hoos u dhigayo walaalkood soo kacayo oo talentigiisa wato kaliya rabo in garab la siiyo annaka ratio hadaan nahay ummadda waan u hagar baxnaa waan caawinaa waan soo saarnaa ummadda u bandhignaa talentiga uu leeyahay hagar baxnaa hasaawina waa tahay in Xuseen ugu dambeyntii maxaad baaqod u diraysaa bulshada horta Catosh aad u mahadsan tahay saaxiib bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay warnimiyo bidibidiyal iska dhigin ninkan waa Catoshare saxeeftiis banaanka taala macnaha sax ya cidna kama qarsoona عدي حجر وضو عدي محل إسلح مكان وقف أيوك وبيا أو هذا الكيس عادي كمان
ninkaan safety banaka ay taala codkiis ilaa talentii la yimid marka haddii maanta nin la yaqaan sidoo kale BBC ka shaqeeya ay codkiis ku geeyeen ma ahan inuu asiga koobeyna ninka codkiisa banaka u yeela talentigiisa waa nin mahmaahida afka Soomaaliga hodan ku ah marka waxaan leeyahay nimiyo soo dhaweey oo beedyaal iska dhigin page-kiisa iyo sidoo kale YouTube-kiisa waa lagu soo yaacaa oo hala kala kiciyo Caga Dahab in ugu dambeyn maxaad dhiile ugu dambeyn waxaan dhihi lahaa teamka ku xiran ninka la yiraahdo Catoosh iyo inta ku soo beeri doonto waxaan leeyahay waxaa idinla jooga Catoosh oo talentigiisu aad ku wada qanacsantiin kuna wada qanci doontaan isagoo wali idin wado barnaamijyo qurux badan riwaayado faano fare kama qodno Catoosh laga dabageeyo youtuberada waaweyn oo ku mahadsantiin hasal ku wadna Catoosh safiic waxaa tahay nin daayir ah ku nool magaalo aan sidaas u weyneyn Jowhar dadkeeda inta badan ay isgaranayaan safiic wadooyinka marka aad marayso ama iskuul aad u socoto ama shaqo aad u socoto maxaa la kala kulmaa bulshada marka laga tago qof qaar oo foodo iyo ciyaal suuqnimo dhaqmaayo maahin inta kale waa dad ku soo dhaweynayo qaar ku soo dhaweeyaan soo dhaweyn aad u wanaagsan kuwa way ii sameeyeen kuwa taleefankay iga soo hambaliyayaan halka asxaabta kalena aan kulano oo aniga ma ihi qof dadkiisa iskala weyn mar walba waxaan jeclahay in aan bulshadeyda aan dhex joogo ما شاء الله ما شاء الله بعد ما سنت هاي ساحب سيدو قرحة بنورته هل كان ما تنوصل بوقتي وأنا وما هتعلنينا عطاش ما تعود جوجنا كلي ما هنا ما تعود جوجنا أنتوا مقدس جوجو وأود جوجي دونا برامجي حيصلهن إن شاء الله وإذا سوقت بدونا عرجينا بيج كان عطاش شرعنا على فلو كره دونتان سيدو كره يوتيوب كيسنا ووري عطاش شرع أسنا كوي عيد دونتان سيدو هاي اللوبنا أصحاب تريل شو oo kala ah badbaada show iyo Caga Dahab show hala kala kaciyo inaad iyakan hee u kala kici doontaan inta aan dib ku kulmi doono waxaan idinka tagaynaa barnaamijka mid xiga sidaas iyo nabadgelyo muuqaal dambe oo xiiso badan